haddii faqri iyo gaajo iyo amni darro iyo dhibi ku soo marto inaad sabirtaan loo baahan yahay ilaa aad ka gaadhaysa nicma alcabdu innahu awaab haddii magac iyo maamuus iyo xoolo iyo sulto iyo waxaan ku soo maranayana imtixaan kalow inaad shukri noqdo abaalkeed marisaa baa lagaa rabaa ilaa aad ka gaadhaysa mansilada ah nicma alcabdu innahu awaab idan waxaan leenahay dunidu aynu ku nool lahay waa imtixaan gebigeedba nabluukum bishari waalkhayr bay taagantay ambiyaduna waa dadka ugu badan ee imtixaanka la geliyey nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay ambiyada imtixaanaadkao dhammi soo mareen isagoo laga xoog badan yahay oo saxaabadiisa hortiisa lagu tumayo lagu garaacayo uu soo maray isagoo xoog badan oo sulda iyo power haystoo dowladdiisu xoog badantay oo dadku afwaajan diinta u soo gelaya wuu soo maray waxay idhahdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxamedi imtixaanaadka dhammaantood wuu soo maray ay imtixaanaad sheegata bay leeyihin haddaad siirada nebi moxamed akhrido waad ku arkaysaa wax u dhigma ay imtixaan bini aadam uu sheegtana qur-aanku taariikhda uu ka warramaya ambiyada waad ku dhex arkaysaa maalan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam fitnatu lqariib buu soo maray dadkii u dhowaayoo lagu imtixaamay isagoo rasuulah oo ilaahay soo diray oo dadka khayr u sheegaya ayaa dadka kuwii ugu dhowaa beeniyeen abujahl iyo abulahab iyo quraysh iyo talkii ugu dhowaa adigoo wanaag sheegayoo lagu leeyahy waa kadaab waa beenaale ama waa saaxir ama waa caynkan uu tilmaamayo ilaa xad intay daba galaan adeerkii uu daba socdo oo markuu isdhaahdo cidla hadal uu idhaahdo anaa wiilkan adeerkiiyo waxba ma oga waa sixirroole iska dhaaf haddii adeerkaa ku daba galo bal aduu qiyaas adeerkaayo aabbahaa la dhashay oo kaa weyn hadduu ku daba socdo oo midhkaad sheegtaba cagsigeeda uu sheegayo uu leeyahy ka yaranagaa dhalay oo waa adeer baanu ahay waxna kama jiraan waxa uu sheegayo yacni cidhidhigaad dareemi lahayd intuu leekaanaya kii kuugu dhowaa markuu xadkaasi kaa taago ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo dejiyey qur-aanka markaa laynoogu tilmaamayaa imtixaanaadkaasi wax lagaga gudbo oo ay ka mid tahay inuu qalbiga bini aadamku cidhiidhigaasi aanu dareemin cidhiidhi kastoo aad dareemto wax lagaga caafimaado alaslu qur-aanku wuxuu tilmaamayaa alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub ilaahay xuskiisa in qalbigu ku dego nusuus badan oo qur'aan iyo xadiidiba way soo arooreen markaa masaa'il badan oo noocaasiya ka warramayaan bitafsiil salliga nebiga ka mida kuwa laakiin waxaan u dan leennuun inaan maanta ka hadallo التصبيح فقط تصبيح وأريق معنيش وحويا سبحان الله مركا ذاذي إلهي باد حمكه في سابي ورجرين علماء الصومالي أما سكة لهذا نوت المامنو وتنزيه ربي عن النقائص وإلهي سبحانه وتعالى كان الزاهي سكف بينيسو عيب أردن إلهي ومعن تنطبع ذاذي وحن نقصية أردن إلهي ومعن طبه إلهي كمالاتكم باوعن طبه الحمد لله ما مركا إلهي كمالك وصويس